annagu halkan ku fadhina xubno ka mid ah xisbiga wadani gaar ahaan deegaanada xeebta iyo buuraleydaba ilaa boorama waxaanu maanta halkan ku qabanaa shir jaraa'id kooban waxaanu uga gol leenahay maanta kulli waxa jira nin saaxiibkaya ahaa xisbigana ka mid ahaa xubnaha silsile xisbiga ka mid ahaa dee waxay ahayd hadduu wax dareemay amba inuu nala tashado yidhahdo wani waxaasan dabacsana amba waxaasi inuu bayna cashiyata duxaaha wax ka yar 12 saacadood oo aragno isagoo xaflad kale ka hadlaya dee walaalkayo kulli garnooguma u lahayn laakiin kuma ceebaynayno dee isagaa garsooday isagayna muxuu ahaaye wuxuu ka helaya dee isagaa og laakiin anagu waxaanu caddaynaynaa inuu xisbigiina aan nahay sidii noogu jirno annaga iyo taageerayaashayadii iyo waxa weeyaan dadkii xeebta deganaa waana la arki doonaa dee bal waxa isbedela hadduu nin dadka meel ugu xidhnaayeen bal waa la arki doonaa laakiin waxaan la arki doonaa iyadoo taageerayaashu intayna ka sii bateen kalsoonidooduna ay sidii tahay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam kulley walaalkay bilaabaa soo sheegay arrintaa uu shirkani daaran yahay waxaan u malaynayaa kulley anigu sida oran maayo muuse xisbigu kamid ahaa marnaba oran maayo sababtana oranay muuse shaacintiisu habeen hore ahayd maantana waan ka baxay buleey murti waxa halka ka garata inuu miisaan culus xisbiga uguna fadhiin u kulmeen ugu fadhiito waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa marxaati beenaale isaguna uu is og yahay ka uu galana wage kulmiye alkan musabbiq maxay ahayd muuse xisbiga wadani waxba kalama u iman kulmiyana waxba lama ogtin aniga oo ah xildhibaan golaha dhexe ah oo wadaniya xisbiga wadani waan ugu halgamaynaa waa halgan baan ku galnay xildhibaannimada waxaan ku galnay halgankii aan ku galnayna waanu wadnaa waanu ku haynaa waanu wadnaa waanu ugu jiri waanu u ballan qaadnay waanu heel iyo hooba wanaagsan ninka saaxiibka yahay musaar de waa nin walba aqoonti weey qof walba garaati weeyaan qof walba reereen maxay maskaxdi weeyaan hadii maskaxdiisu ay waxa weeyaan ay nasiisay inuu ka baxo xusbiga waxa kuma haysano anagu wax dhib oo kuma aragno wax dhib oo culays kuma aragno ilayna mahad iska leh halkan imika waxaan ugu fadhinaa waxaan ugu maqaalaa maanta Muuse Carab Dugsiye oo aan dhawaan xisbiga soo gelinay oo fiiriyoogiisii la hayo inuu xisbiga wadani kamid ahaa nana shaqeynayay inuu haddana maanta ka fadkudiyay xafladii kulmiye oo uu yiri haddana kulmiyaan galay horta mid cajiib ah Muuse aanu saaman haysan wuxuu haystay nin miisaan leh in hal laanu haystay in hal leh hal siyaasadeed in laanu haystay laakiin waxaan maanta halka iga muuqata hanka Muuse Carab inuu han hunguri ahaaye han siyaasadeed aanu hayn walaalkay Muuse Carab oo aanu ahayn xisbigani dee isagoo iga dambeeyay waa ka soo riiyay habeen hore aanu shaacinay Muuse kulli aanu wax deeflagaada iyo wax ay ormay laakiin saddexdii qodob ay igu sheegay madaxweynaha aan ku aaminay isaga laftiisa ay sheegay oo yiri madaxweynuhu wuxuu leeyahay saddexdaa qodob oo ah wajigii asxaabtu leeyahay hadalkii ambiyadu leeyahay ducadii awliyadu leeyahay sidaasaan ku raacay buu yiri waana nin guusha helay buu yiri maanta waa xalay oo maantana waa to waxaan kale laga sheegay waa nasiib darro weeye baan yaa ku dhacday nasiib darraasi saa ku dhacday annaga uma dhicin annagu ballankii aan qaadnay iyo axadii aan qaadnay hadday bir ka adag tahay waan fulinaynaa nin irawaan sicasiilay iyo halkan aan ku biiray dee anigu marka hore waxba iima tarin anu dadkaygu waan haystaa waxa la wuxuu wadani u noqonayaa ma jirto nimankaan ishaynaa kulmiyeen way og yihiin miisaanka aan ku leeyahay ee ku haya xeebta haddii aan la yidhaa bisha 13-keega codka aan ka soo saaro xeebta ayaa lagu xisaabtami damiirka yaga iyo damiirka dadka yaga iyo halka yaga iyo halka dadka yaga midna aan soo noqonin oo halka aan taaganahay
annaan ka soo noqonayna aan nahay wadani anigoo hadalkaasii badinayn muuse carabna waxaa leh amiir diriraan ku moodaye adeer ma alaabadii dumarkii ayaanba lagu raacsata